السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا ونكسن داوديال كسو دوادا تبينتينا ورركي وقدن بي سوماليدا يا عالمكا waxaad si toos ah uga daawanaysaan channelkeena Hage Media qodobada ugu waaweyn ee wararkeena aan idinkugu soo gudbinayno ayaa waxa kamid ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ku dhawaaqay in Somaliland ay ogolaatay 7 cisho gudahood in Gooja Cadde iyo guud ahaanba SSC ay uga guuraan ciidamadeeda isla Somaliland war calaacal u eg ayay ka soo saartay baaqi cusla ee ka soo baxay jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa Puntland oo eedeyn la yaab leh mar kale u jeedisay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya mas'uul caan ah oo xabsiga loo dhigay musuqmaasuq uu ka sameeyay halkii uu ku sugnaa iyo Axmed Boole Gareed gudoomiyaha gobolka Gado oo sheegay inuu yahay madaxweynaha xorta ah ee maamulka Jubbaland Axmed Madoobe uusan garanaynin haddii ay tahay markii ugu horeysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso barteena nagu soo biiro oo kamid noqo saaxiibada halkan aynu ku leenahay waa jimco taariikhdu ay ku beegan tahay 9ka bisha June sanadka 2023 waxaan u guda galaynaa qaybaha hore ee barnaamijkeena aynu ka hormarnay Garaad Mukhtaar oo kamid ah garaadada Soomaaliyeed ee shanta ah ee ku sugnaa maalmihii aynu ka soo gudubnay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho oo ay kulamo kula lahaayeen hoggaanka sare ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa khudbad xasaasi ah ka jeediyay magaalada Muqdisho wuxuuna sheegay in 7 maalmood ay dalbanayaan ciidamada Somaliland inay uga baxaan dhulka SSC oo ay tagaan oo kadibna nidaamka wada hadalka ay iyagu diyaar u yihiin garaadka ayaa tilmaamay in la carqaladeyn doonin ciidamada Somaliland ay isaga guuraya Gooja Cadde iyo guud ahaanba dhulka SSC waxaana uu tilmaamay in dhiig walba oo daatay iyo wax kasta oo dhacayba ay ku soo afjarmi karaan in dhiigaasi uu sii daato in gabi ahaanba meesha laga saaro ciidamada Somaliland oo deegaanadooda ay dib ugu laabtaan haddaba hadalkaasi kadib waxaa soo baxay warbixin madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku leeyahay 7 maalmood gudahood ayay uga baxayaan ciidamada Somaliland guud ahaanba deegaanada SSC waa in SSC ay fursad siisaa howlaha guuritaanka ciidamada Somaliland oo aysan carqaladeynin madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo la kulmay odayaasha dhaqanka ayaa sheegay Somaliland inay ogolaatay 7 cisho gudahood in ciidamadooda ay halkaasi uga saaraan isla markaana SSC looga baahan yahay dhinacooda nabadda inay adkeeyaan garaadada ayaa aqbalay isla markaana ballan qaaday in haba yaraatee aysan sameyn doonin wax arbushaada ciidamadaasna loo furi doono wadooyinka si ay nabad ugu gaaraan deegaanadooda waxaana arintan ay noqotay mid aad loo hadalhayay saacadihii aynu ka soo gudubnay iyadoo dhinaca kale Somaliland ay soo saartay xalay warbixin la yaab leh oo calaacal u eg oo ku socota qaramada midoobay Somaliland ayaa walaac ka muujisay go'aanadii qaraara ee ka soo baxay qaramada midoobay oo si toos ah u taabanayay iyaga isla markaana lagu amrayay ciidamadooda inay ka saaraan Gooja Cadde iyo dhulka SSC xukuumadda Somaliland ayaa jawaab ka soo saartay bayaankii ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay kaasi oo si kulul looga hadlay dagaalka 5 bilood ka sii socda Laascaanood Somaliland ayaa ugu horeyn waxay soo dhaweysay bayaankii ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee ku saabsanaa joojinta colaadda Laascaanood iyo burburinta xaaladaha nabadda ee magaaladaasi war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland ayaa lagu sheegay in golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu u muuqday mid looga been sheegay xaaladda dhabta ah ee ka taagan Laascaanood ayna ciidankeeda ka baxeen Laascaanood 26 Febraayo 2023 sanadkan Somaliland ayaa sheegtay in markaas wixii ka dambeeyay ay ciidankeeda difaac adag ka galeen meel ka baxsan magaalada Laascaanood isla markaana si adag uga hortageen in ay waxyeelo soo gaarto dadka rayidka ah iyadoo marar badan ay kooxo maleeshiyaad ah soo weerareen sida warbixintan lagu sheegay xukuumadda Somaliland ayaa waxay ka walaacsan tahay 6dii go'aankii golaha ammaanku uu soo saaray oo fursad u ah in kooxda Al-Shabaab ay si xoog leh isugu soo ballaariyaan magaalada Laascaanood iyo gobolka Sool ee Somaliland ayaa lagu yiri qoraalka sidoo kale waxaa lagu sheegay qoraalka in arintani aanay qatar ku ahayn oo kaliya Somaliland balse wadamada jaarka iyo gobolkaba sidaas darteed ay qatar ugu yihiin oo Somaliland ay ugu dhug yeelanayso in qatartaasi ay si toos ah uga hortagto ma jirto dawlad kaliya oo xakameyn karta qatartan sidaa darteed dawladda Somaliland waxay ka codsanaysaa xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay fiiro gaar ah siiyaan oo ay gacan ka geystaan sidii ay qatartan isa soo taraysa uga hortagi lahaayeen Somaliland
ayaa waxay sheegtay in warqadda ay u dirtay xogayaha guud ee qaramada midoobay taasi oo ku taariikhaysneed 12 bishii Abriil 2023 islamarkaana lagu ogeysiyay khatarta Al-shabaab ee kusoo korortay magaalada Laascaanood iyo guud ahaanba gobolka Sool. Qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in Somaliland ay wada hadal ku baaqaysay tan iyo markii ay bilaabatay colaadda, laakiin garaadadu ay aqbali waayeen iyo in ay bixisay jid gaar ah oo aan carqalad lahayn, ayna xukuumadda gargaar cunto, biyo iyo adeeg caafimaad leh gaarsiisay deegaanada ay dadku ku barakaceen sida hadalka lagu sheegay. Waxay sheegtay in ciidamada Somaliland ee Sool ay difaacayaan madax-bannaanida dhuleed ee Somaliland iyo xuduudaheeda la aqoonsan yahay. Markii ay madax-bannaanida qaadatay islamarkaana ay xuduudaha Somaliland waafaqsan yihiin qodobka 4 ee sharciga dhulka Afrika ee qaramada midoobay ay aqoonsan tahay. Caqabadda ugu weyn ee nabadda iyo xasilloonida magaalada Laascaanood hortaagan waa soo gelitaanka magaaladaas ee ciidamo maleeshiyaad ah oo kasoo kala jeeda maamul goboleedka Puntland, deegaanadiisa kala duwan ee Soomaaliya, oo iyagu si firfircoon u horeynaya colaadda ka taagan. Waxa kale oo in dagaalyahano ka tirsan kooxda Al-shabaab nagula soo wargeliyay goor sii horeysay, taasi oo qayb ka ah qaab qabiil oo ay u adeegsanayaan dhaqdhaqaaqyada ay ka wadaan magaalada Laascaanood. Ugu dambeyntiina waxaa lagu sheegay war-saxaafadeedka Somaliland in sida kaliya ee lagu xalin karo colaadda Laascaanood ay tahay inay ka baxaan magaaladaas ciidamada Puntland, iyada oo golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ku boorisay inay taageerayaan bilowga dadaalada nabadeed. Haddaba qoraalkii xalay kasoo baxay Somaliland iyo khudbadii shalay uu jeediyey Garaad Mukhtaar iyo go-aankii madaxweynaha uu la wadaagay garaadada ee ah in toddobaad ay ciidamadooda kula baxayaan Somaliland ayaa iska hor imaanaya, iyadoo arrintan lagu sababeeyay mid muujinaysa in Muuse Biixi Cabdi go-aankii uu qaatay dib u kala qararaaday. Qaramada midoobay waxay doonaysaa in toddobaad kadib ciidamada Somaliland ay bannaanka ka ahaadaan guud ahaanba Gooja Cadde. Puntland ayaa eedeyn la yaab leh u jeedisay dowladda federaalka Soomaaliya. Dowlad goboleedka Puntland ayaa si adag uga hortimid hanaanka ay dowladda federaalka Soomaaliya sanadkan u maareysay arrinta xajka. Puntland ayaa waxay dowladda federaalka ku eedeysay inay musuqmaasuq ku sameysay qaybsiga saamiga xajka, taasi oo si weyn loogu cambaareeyay war-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda cadaaladda Puntland. Wasaaradda cadaaladda Puntland waxay cambaareynaysaa boobka, eexda iyo musuqmaasuqa ay wasaaradda diinta ee awqaafta federaalka ku sameysay qaybsiga maamulka iyo adeegyada xajka, ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay Puntland. Wasaaradda ayaa ku eedeysay dowladda federaalka Soomaaliya inay si ku dhisan cadaalad darro u qaybisay saamiga xajka ee sanadkan, islamarkaana maamulka Puntland ay ka siisay 850 kursi tirada guud oo ah 11,500 oo kursi. Waxay magacaawday wasaaradda guddi muqallasiin ah oo ka kooban shaqaalaha wasaaradda oo xigto iyo xaalad dhow la ah madaxda wasaaradda, shaqadooduna tahay inay lacago kasoo urursadaan xujayda. Puntland ayaa sidoo kale waxay wasaaradda diinta ee awqaafta federaalka Soomaaliya ku eedeysay in ay la wareegtay adeegyadii shirkadaha xajku siin jireen xujayda, taasi oo saameyn togan ku yeelan doonta tayada adeega, cibaadada iyo weliba nolosha xujayda. Waxaana sidoo kale arrintan la yaab kale ee Puntland ay ku eedeynayso dowladda federaalka Soomaaliya dad badan ay ka muujiyeen walaac aad u xoogan iyo in khatartu ay sii xoogaysan karto. Mas-uul caan ah oo dowladda federaalka Soomaaliya ka tirsanna waxaa loo xiray arrimo musuqmaasuq. Taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa shaaciyay in la soo xiray agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Cabdulaahi Maxamed Cali. Taliska ayaa sheegay in agaasimaha lagu soo xiray waaran maxkamadeed iyadoo la dhowrayo sareynta sharciga, sida lagu yiri qoraal ka soo baxay taliska guud ee booliiska gobolka Banaadir. Taliska qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir ayaa maanta, iyada oo la dhowrayo sareynta sharciga, waaran maxkamadeed ku soo xiray eedeysane Cabdulaahi Maxamed Cali, agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada, ayaa lagu yiri qoraalka. Agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee booliiska uu shaaciyay in la xiray ayaa waxaa loo haystaa eedeyn la xiriirta wax isdabamarin. Ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ayaa dhowaan dalbaday inaan la qabiileynin dadka loo soo qabto arrimaha musuqmaasuqa ee mas'uuliyiinta ah, islamarkaana laga dhigi doono live oo TV-yada laga daawan doono qof kasta oo musuqmaasuq lagu soo eedeeyo. Waxaana mas-uulkan la filayaa in sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo taago maxkamad. Mas-uuliyiin kala duwan ayaa la fahamsan yahay in dabagal lagu hayo, islamarkaana
la rajeynayo in la ceebeeyo oo la horgeeyo maxkamadda si ay tuuganimadii ay u galeen loogu caddeeyo. guud ahaan waa naga intaa tabinteena wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka. muuqaalkan kan xigeentan dib ugu kulmi doono. nabadgelyo.